guddida nabadgelyada gobolka Sanaag ayaa degmada Celifin oo gobolka Sanaag ku dhaariyay beelihii dirirtu ku dhaxmartay deegaanada degmada Celifin oo gobolka Sanaag iyo deegaanada hoos yimaada waxaana dhaartaasi goobjoog ahaa guddiyada dhexdhexaadinta guurtida iyo waliba xidhayaasha labadan arda sidoo kalena waxaa labadan arda loo kala qaaday aasaskii dadkii ku dhintay shaqaqooyinkii ku dhaxmaray muddooyinkii ugu dambeeyay ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse maayirka degmada Celifin Maxamed Aadan Digaale iyo xubin ka tirsan golaha guurtida Somaliland salaadinta guud ee labadan arda laba bilood iyo 10 habeen waxaanu ka shaqeynay inta maanta qabsoontay waxaan uga mahadnaqaynaa waayeelada dhamaantood haday yihiin mid gurmadka xagga hore ka yimi iyo haduu yahay mid xagga dambe ka yimi laba meelood baa dhaartii maanta dhacday dhaari hore kaga duwan tahay waliyudam la dhaariyay ma soo marin waliyudamkii baa la isu dhaariyay ninkii wax ka dhinteen nabadgelyada inuu qaatay isla markaana inaanu aarsanayn baa laga dhaariyay mid labaadna way kaga duwan tahay guddiyada xidhayaasha iyo guddiyada guud ee ka garnaqaysa intuba waa dadkii ehelka u ahaa arintan reeraha halkan ku dagaalamaya laba kelmadood baa ka furan oo mid waa nabadda qaadateen adkeeya kana dhabeeya yaana inay ugu soo noqon mid labaadna waa guddiyada khaladka halka ka dhacay iyo eedda halka ka dhacday iyo dhibaatada qaybtiina leedihiin qaybtiina waxa uu leedihiin mashaqooyinka waxa soo celceliya ee ay u soo noqnoqotaa waa dad ka badan dhowr iyo 60 ama dhowr iyo 50 aan waxba lagu kala qaadan waxyaabaha soo celcelinaya koobay ka ahayd waa wixii ay qaadateen waa wixii ay ka ballan qaadeen hoolkan laftiisa ka sheegteen wixii ay halka ka sheegteen ma idin rumayn doorka xukuumad ahaan anoo ka wakiil madaxweynaha qaranka arinta xoogaanu saarayna awooddaanu saarayna beelad wax karadkoodii cuqaashooda waxaan leenahay samir ogaada oo dabacsanaada waayeelka ay wax garadka dhexdiina ku jira ee idin garnaqaya ee hawshiina geli doona u dabacsanaada xarkahana hagiijinina ee dabciya si ay nabadu u xiranto ficil la ku daro ilaaliya nabadgelyada waxa la doonayaa war maanta inay ka duwanaato tii hore inay ka duwanaato oo qalbi wanaagsan ay sula markaa imaka sidii ahaan jirteen ay sula dhaxmartaan oo magaalada ku furataan oo deegaamadii ku wada furtaan oo dadku isku wada dhaxmaro waynu wada joognaa dib baynu u sii dardaarmi doonaa laakiin waxaan ku soo ururinayaa war nabadda maanta waxa la doonayaa nabad inaynu ka run sheegno waxa la doonayaa inay noo guntanto waxa la doonayaa ka wada shaqayno waxa la doonayaa inuu iskaga soo dhawaano waxa la doonayaa halkan anagu waxaan u sii fadhiyi doonaa inaan hadalka la isku xagin la isku soo dhaweeyo si ay soo dhawaadaan waa dhiman doonaa oo dadku meesha dad ku wada noole aan qofkii dhintaba markaa la isku yaacin taasi waa talawi waliba qofku hadduu gardarra ku dartana waa ka sii daran ku dhint ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu alla nabadda inoo adkeeyo boggeena burqada inuu alla isu mariyo maanta inay qaadanto kala qaybsanaantii maanta waa dhinac walba la isaga gudbaa alla bariga la shubaa shaaha shuba dadka soo dhaweeya ducada inoo badiya fariintana gaadhsiiya meelkas magaaladana fura meeraduhu ha inoo furmeen dadku ha isu soo dhawaadeen ilaahay shuushoo bax sharow guur khayro lowooho baa la odhan jiray ilaahay intaasba ha inugu asturo waynuna ducaynaynaa dadka halkaa isaga yimi ummaddu waa markhaati dadku shahaday yihiin war markhaati baa maanta nooloo yahay halkaasaa la joogaa ilaahay khayr iyo jasaay ha ka siiyo meesha ceebta inaga ilaaliya nabadaynta maanta halkaa ka dhacday Ceelafweyn waxaan leenahay jazaakallah mid waa dardaaran oo reer Ceelafweyn waxaan leenahay mar dambe yaa la idinku soo noqonay nabadda maanta aad xidhateen ee kitaabka gacanta ku saarteen xajiya baan leenahay sida kitaabka kaga dhabeeya waxaan noo qabsoomay dadkii waa la dhaariyay uqaashi waa la dhaariyay waliyadamiyadii waa la dhaariyay aasaskii waa loo kala qaaday si fiican ayuu dhacay inta dhimanna waa la dhameystirayaa